Asalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada. Imaamkii weynaa Allah u naxariista ee Imaamu Shaafici ayaa macallin u ahaa arday, wuxuuna aad u jeclaa wiil ka mid ah ardaydiisa. Ardaydii ayaa bilowday inay u sheegaan waalidiintooda in macallinkooda uu hal arday jecel yahay. Qaar ka mid ah waalidiintii ayaa u yimid si ay uga wareystaan arrintaas. Markii imaamku su'aal laga weydiiyey wiilka yar uu jecel yahay, wuxuu yidhi, wiilkani waa wiil aad u cajaa'ib ah, sidaa awgeed ayaan u jeclaaday. Dhammaan ardayda oo idil waxaan ka qaaday imtixaan. Mid waliba oo ka mid ah ardaydana waxaan ku dhahay, digaagad soo qal, waxaadna ku soo qashaa meel aysan cidna ka arkayn. Kadibna carruurtii kale oo dhan way soo qaleen, laakiin wiilka wuxuu soo noqday isagoo aan soo qalin. Markaas ayaan ku dhahay, maxaad u soo qali weysay digaagadda? Wiilkii yaraa ayaa iigu jawaabay, macallin sownama dhihin digaagadda ku soo qala meel aysan cidna idinka arkayn. Kadibna waxaan ku dhahay, haa. Wiilkii ayaa igu dhahay, ilaa maanta waxaan raadinayay meel aysan cidna iga arkayn, balse waan waayay. Xitaa haddii aan dadka iska qariyo, waxaan ogaaday in uu Alle ii jeedo meel kasta aan isku qariyo. Imaamka ayaa yidhi, wiilka yar wuxuu ogaa inuusan ka dhuumi karin Allah, ee qof kasta oo ogaa wax kasta aad samaysid Allah uu ku jeedo. Ha ka baqin qof bini'aadan, wax kasta aad samaynaysidna u samee Alle dartii, ugana tag Alle dartii. Waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iido muuqaalkan. Haddii uu ku anfacay, like saar, lana wadaag asxaabtaada. Fikirkaagana noogu reeb qaybta kommentiga.